taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir sidoo kalena ahaa taliyaha ciidanka gaarka ee Haramcad sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole ayaa goorrow lagu dilay qarax miino oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo laba buundood leh oo hoostaga deegaanka Basra ee duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka la galiya ayaa lala beegsaday taliyaha Qaroole xil uu lugeynayay, waxaana wararku ay sheegayaan in taliyaha uu la dhintay mid ka mid ah ciidankii ilaalada u ahaa taliyaha iyo wariye qayb ka ahaa socdaalka taliyaha, sida TV-ga Universal ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Taliya Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidanka dawladda ee saaka la wareegay deegaanka Basra oo horay gacanta ay ugu hayeen ururka Al-Shabaab. Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole waxa uu ka mid ahaa saraakiisha da'da yar ee aadka u firfircoon, waxaana uu ka soo shaqeeyay ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliska oo hadda uu ka ahaa taliyaha guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir. 12 bishii Abriil sanadkii 2021 ayaa taliya Farxaan Qaroole oo ahaa taliyaha ciidanka booliska gaarka ee Haramcad loo magacaabay taliyaha guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir. 25 bishii Diseembar ee sanadkii 2021 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u dalacsiyay darajada sareeyo guuto. maanta oo taariikhdu ay tahay 30 bisha 9aad ayaa taliya Farxaan waxaa lagu dilay deegaan lagu magacaabo laba buundood leh oo hoos yimaada deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wixii warar ah oo ku soo kordha geerida taliyaha warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaan.